gaajidii anaga ku imaaniyo ku soo qaxnay wali dhaxtaagnay bishaan Ramadaan wax ku soogno meel noogu darban malaha maacuun ba guri islaana dhaxbaranay wax hadda gacan noogu jirmi jiraan farxana ka imaaday bishaan 3 way aan joog oo ebadkan ma aan dhahan wixii islaan isiyo buus ma qabo wixii islaan isiyo waxay ahaayeen caruur iyo haween danyar ah ma haystaan meel ay ka galaan dhaxanta iyo roobabka inta badan ka daa Muqdisho waxay ku noolaayeen xiro barakac ah oo ku taala barxadda beerta daraawiishta degmada Holwadaag ee Muqdisho halkan waa goob caruurta lagu baro Qur'aanka Kariimka oo ku taala gudaha xirada barakacayaasha aan booqanay marka laga soo tago in caruurtan la baro Qur'aanka Kariimka ma jirin waxbarasho kale oo ay haysteen Faadumo Cusmaan Ibraahim oo ah hooyo heysata 7 caruur ah dhawaana ka soo barakacday deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose waxay ii sheegtay inaysan haysan waxyaabo ay ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan gaajidii anaga ku imaaniyo ku soo qaxnay wali dhaxtaagnay bishaan Ramadaan wax ku soogno meel noogu darban malaha maacuun ba guri islaana dhaxbaranay wax hadda gacan noogu jirmi jiraan 3 bilaan deganahay waxna ma haysto intee ku soo tagtay meeshaas dagaal hub baan ugu kor garaacmay dagaalan u soo tagnay mud badana ku dhamaatay amankii dadkas dhamaaday anaka aragnay waa iska soo baxnay cid soo lugaysay cid gaari soo raacdo iyo cid masaakiin gaari lagu soo raac ay noqdeen meesha marka waxna la qabtay malaha muslimka oo asaga dhaqdhaqo iyo meel kasta ka yimaadaan iskaga dul noolnay Suru Isaaq Ahmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xirada barakacayaasha ah ee Siidka ayaa iiga sheekeeyay qaabka ay dadkan ugu nool yihiin xiradan kaamkan waxa gudoomiye ku-xigeenka hay waa sanadkii 4aad hadda hay'ada arday kaamkan gacanta ku hay Ilaahay gacanta ku hay mijir bal barakaysan baa laga lahayaa bishaas barakaysan hay'ada hadda nooga caawiya arday noo imaaday ama karisa idin fureen ama raashina idin siinayna ama na dheys maaran ummadda meeshu ku nool arday ummad farac badan way kaamkan waxa degan 3500 oo guusa degan dadkaas badidooda waxa ku noolin gaara dhar soo dhaqa gaara gacan riya gaara qashan haaqa gaara aragdeeda oo inta guryaalka la dhisay alwaahda jajabka soo aruuriyaan oo dib u goobayaan oo kun ka gataan gaara soo dawrsadaan madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay hay'adaha caalamka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed in la caawiyo dadka danta yar ee ku nool xirooyinka barakacayaasha ee ku yaala Muqdisho inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Aweys Maxamuud Julco Royal TV Muqdisho